midab buluuga oo xoogan ayaa dul haabanaya dhulka barafka ee Greenland. Waa muuqaal qurxoon, laakiin marka barafku dhalaalo, badda ayaa kacda. Horteena ayuuna ka muuqdaa. Koox BBC-da ayaa ku biirtay saynisyahano British ah oo isku dayaya in ay fahmaan isbeddelka barafkan. Dhulka barafku uu yaallo waa 2 mayl ama 3 kilomitir. dhulka hoose ayuuna qodan yahay. Xaqiiqdii aad ayuu u weyn yahay. Waxaadna gelin kartaa dhismaha caalamka ugu dheer ee Burj Khalifa ee Dubai. 4 dhismahaasi ayuu gees ka gees la eg yahay. marka aan ku sii lugaynayna waxa la yaab leh barafkii cadda madow ayuu isu bedelayaa. marka dhulku uu sii madoobaadana falaaraha qoraxda ayuu ku sii milmayaa sida adigoo funaanad madow xiran maalin kulul. You got this dark ice here. Yeah, so we got a dark surface. madaxa saynisyahanada Martin Tranter ayaa sheegaya in hal sabab ee barafkan madow ay tahay dhir yar. Alga waa dhir aan la arki karin laakiin saameyn weyn leh. What we want to know is how far the algae can... waxaan doonaynaa inaan ogaanno inta ay dhirtaasi ku faafi karto dhulka barafka ee Greenland iyadoo cimiladu sii kululaanayso. waxaa suurtagal ah inay sii dhalaalin karaan heerka badduna sii kacdo. ilaa waa dhaweyd dhalaalka barafku waxa dheelitirayay barafka qaboobaha. laakiin 20kii sano ee u dambeysay qulqulka biyaha waa uu sii labalaabmay taasoo kordhisay heerka badda. qayb yar oo barafa oo dhalaasha ayaa kordhisa heerka badda. halis ayay ku tahay malaayiin qof oo ka mida dadka xeebaha caalamka ku agnool. qaybta hoose ee barafkan qulqulka ayaa noqda mid xoogan. waxaanu ognahay in barafka dhalaalay uu u kordhinayo heerka badda si tartiiba, laakiin cilmi-baarayaashu waxay doonayaan inay ogaadaan in kororkaasi uu sii xoojinayo iyo in dadka meelaha hoose jooga sida Florida, Bangladesh iyo qaybo Britain ka mid ah ay helayaan saadaal sax ah.